majaalistan ixtifaalka nabiga salى اllahu عalayhi wasalam walaalayaal waxa loo qabanayo keliya waxay tahay innagaa ku danaysanayna qalbigeennu inuu ku nuuro maxabada nabigeennu inay nagu weynaato salى اllahu عalayhi wasalam dadku inay bartaan nabigooda salى اllahu عalayhi wasalam in innaga itibaaca iyo mutaabacada nabiga salى اllahu عalayhi wasalam nala ka helo intaas weeye waxa majaalistan oo kale aan u qabanayo waxaana la doonayaa qof walba inaga naga mida inuu nabiga salى اllahu عalayhi wasalam uu ka jeclaado naftiisa iyo maalkiisa iyo caalamka dhanba wixii makhluuqaad oo dhan oo ilaahay abuuro dhan nabigaa kaaga xaq badan ilaahay wuxuu yihi jala sha'nu النabiyu أwlىa bاlmuؤminiina min anfusihim nabigu muؤminiinta wuxuu kaga xaqnimo badan yahay naftooda qof la yidhi ka warran naftaaduu kaaga xaq badan yahay qofkaasi ma sahlan yahay xaggee la geeyey nebi moxamed salى اllahu عalayه wasalam ilahay xaggee geeyey marka nebiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayh waa in qalbigeenna uu ku weynaado waa inaanu badinno xasuustiisa waa inaanu salligiisa badinno salى اllahu عalayhi wasalam mutaabacadiisana aanu badinno oo nabiga raadkiisii aan raacno salى اllahu عalayhi wasalam saxaabada nabiga salى اllahu عalayhi wasalam nabiga salى اllahu عalayhi wasalam siday u jeclaayeen oy taaka taaka ugu raacayeen heer waxay gaareen qaarkood sida cabdullahi bni cumar oo kale cabdullahi bni cumar xadiiskii ibnu xibbaan uu saxiixiisa ku wari jiray ma min shajara kaana yanzilu cindaha rasuulu اllah salى اllahu عalayhi wasalam ilaa kaana bnu cumar yanzilu taxtaha waa safar caadiga markuu u socdo cabdullahi bni cumar maka iyo uu aadayo geedihii nabigu ku nastay cibaadado dhan waa soo dhaafi geed kastoo nabigu hoos fadhiistay oo u calaamaysnaa anigana halkanaan hoos fadhiisanayaa u dhihi jira war cabdullahi bni cumar weli lama daalina haddanba soo baxnee maxay tahy maya sow khayru khalqillahi meeshan ma fadhiisa bal ibnu xibbaan wuxuu saxiixiisa ku warinaya geed uu calaamaystay cabdullahi bni cumar kaana yajii'u bilmaa fayasubu cindaha xataa laa taybas biyuu soo qaadan jiray mararka qaar geeduu waraabsan jiray si uusan uga qalalin geedkaas oo mar kasta uu safarkan ku soo laabtaba isagoo qoyan uu u yimaado geedkaas ilaa geedka haddaan la waraabin intuu qalaluu dhacahay soo maha baaba'ahay xashku ka mid noqonahay cibaado intay soo dhaafeen ku dayashada nabiga salى اllahu عalيه wasalam cabdullahi bni cumar geed kasta oo nabigu uu hoos tegey markuu safar gelayo isna waa hoos fadhiisan jiray maxaa dhacay nabigaa meeshaan hoos fadhiistay salى اllahu عalayه wasalam nabigaa degey nabiga calayh الsalaatu wasalam bal cabdullahi bni cumar nabigeena salى اllahu عalayhi wasalam maalin maalmaha ka mida uu wuxuu yidhi low taraknaa hada albaaba linnisaa albaabkaas masjidka waxaa fiicnaan lahayd inaan dumarka u dayno falam yadkhul minhu ibnu cumar abada weligiis cabdullahi bni cumar albaabkaas kama gelinaa leh anas qudaarta wuxuu ugu jeclaa noocan la yidhaha bocorka maxaad ku jeclaataa la yidhi bocorka ra'aytu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam yatatabacuhu xawla alqasca geedkan aniga wax kale kuma jeclaane nebigu waxaan arkay maalin xeerada ka qaadanaya bocorka maalintaa laga bilaabo qudaarta bocoraan ugu jeclaayo waa mutaabacada nebiga salى اllahu عalayhi wasalam raadraaca nebiga heerka ay ka gaareen saxaabata rasuuli الlah bal qudaar iyo raashin waxay fadili jireen raashinka keebuu jeclaa qudaarta noocee ugu jeclaa annagu maanta isma weydiino oo waxaaba laga yaabaa sunno cad oo weyn inaanba khilaafnaba dadkaas waa tageen waxay marayaan qudaar iyo raashin
noocee jeclaa nabigu salى الlahu عalيه wasalam way tageen dadkaa saxaabada nabiga jacaylkii nabiga mutaabacadii nabiga salى الlahu عalيه wasalam ayaa heerkaas la gaartay ma u malaynaya saxaabigaas inuu qiyaamuleil ka tago ma u malaynaya saxaabigaasi sunno raatibo ah oo rawaatibta salaadaha faradka inuu ka tago ma u malaynaya saxaabigaas ya ilaa arrimahaas waa sunnooyin waaweyn soo ma ah rawaatibta salaadaha oo faraa'isha ah inuu ka tago ma u malaynaya qiyaamuleil inuu ka tegayo ma u malayn caday inuu ka tegayo ma u malayn ya salaatu duxa inuu cafinayo dhaafayo ka tegayo miyaad u malayn abadan marka waxaa la doonayaa diintuna ay nuur noogu yeelane maxabatu rasuuli الlah salى الlahu عalيه wasalam wa mutaabacatuhu shibran fa shibran taako taako inaan nabiga u jeclaano raadkiisana aan raacno nabiga salى الlahu عalيه wasalam taasaa diinkeenu ku nuuraysa awsaafta nabiga salى الlahu عalيه wasalam iyo shamaa'ilka nabiga marka laga sheekaynayo culimmadu maxay noogu alifeen qaadi ciyaad kitaab weynuu qoray الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى شمائل النبي كتاب وين وقري وشمائل كنبية الشمائل الخلقية والخلقية وكسو أرورية انتاس مجورنال الله اسك قرية بس هدف اللي قال لي ولا جيد دينكم ما أها جورنال قري لكن دينكم وإنه دقن كان وكم موقنيو دقن كان إنه كم موقنيو nabigeena salى الlahu عalيه wasalam akhlaaqdiisa nabiga salى الlahu عalيه wasalam waxaa ka mid ahayd kaana raqiiqa اlqalb riqaة اlqalb ilaahay subxaanahu watacaala salaadiisa iyo qiyaamuleilka iyo markii nabigu salى الlahu عalيه wasalam la gaaro aad u jeclaa nabiga عalayه الsalaaةu wasalaam ya alimaam axmed wuxuu musnadkiisa ku wariyey min xadiisi caliy bni abi طaalib dagaalkii beder ood maqasheen oo taariikhiga ahaa wuxuu yihi sayiduna cali maa fiina faris ila اlmiqdaad nin faras saaran oo faras ku dagaalamaya waxaa nooga jira uu yihi miqdaad ibn اlaswad saxaabigaasaa nooga jira wamaa fiina ilaa naa'im dagaalkii markii uu dhammaaday habeenkii ku xigana kulli waa wada daadanay uu yidhi dad maalintoodii dhammaan meyd iyo dhaawac daldalayay oo seeftu dushooda ka walac lahayd oo dhibaatada ay rafaadkaa ku jiray habeenkii dagaalkii beder waa daadanay uu yidhi ilaa rasuulu الlah salى الlahu عalيه wasalam kaana yusallii taxta shajara yabkii xataa asbax habeenkaa dagaalku dhacayay nabiga waxaan arku yidhi geed hoostiis isagoo jooga oo tukanaya ilaa uu waaga ka baryay yusallii wa yabkii xataa asbax geedkaas hoostiisa ayuu ku ooyayey ku dukanayey ilaa waagu uu ka baryo nabiy llahi moxamed salى الlahu alay slm maalintii oo dhanna dagaalkuu ku jiray oo nabigu hogaaminaya waa taas waxaa nala ka doonaya walaalayaal ma laga heli karaa qof maanta yacni iimaanka heerkaasi juhdiga gaaray maalintii oo dhanna diinka ilaahay inaad dhiiggaaga u hurto oo naftaadii iyo ruuxdaadii dhiigga maanta oo dhan aad u horeysay maalintii habeenkiina aad sidaa u taagantay maxabo ilaahay aad u qabtid diinka maxabo aad u qabtid adigoo daalan aad ka dooratay ilaahay dikrigiisa yusallii taxta shajara yabkii xataa asbax ilaa uu ka waabariistay nabigaas waa nabigana laka doonayo walaalayaal inaan jeclaano raadkiisana raacno salى اllahu wslm wbaaraka calayh